بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم magacayga waa Suldaan Maxamuud Deer Axmed kamid odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed awalan waxaan rabaa meeshaan inaan uga hadlo shirkeygan jaraa'id maanta arrimo dhowr oo habeenahan ka seexan waayay ummadda Soomaaliyeedna intii wax garadkaay intii wax dhibayso waxaan leeyahay awalan ummadda Soomaaliyeed meel kasto aad joogtaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh daliidibad bacdu salaam walaalayaal waxaan leeyahay marka ilaahay aan barino horta meel kasto aan joogno ummadda Soomaaliyeed waxa dhibka iyo culayska inuu ilaahay naga qaado abaaraha soo noqnoqday doorashooyinka dad khaas oo meel kale u shaqeeyay ay mar walba dib u wadaan dib u dhigayaan insha Allah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala waxaas ilaahay aan ka barinaan leeyahay dadka ayaga oo ummadda Soomaaliyeed ka soo dhaxbaxay oo in curyaamiye rabo oo shisheeye hoos geeyana waxaan leeyahay si gaar ah hal isaga qabto ummadda Soomaaliyeed sharafta leh oo wada jir wax u qabsan jirtay waxaan qabaa in la iska qabto dadka ayagana waa la garanayaa hadda hebel iyo hebel inaan sii dhahno waa laga fiican yahay waa garanaya saqiiraa garanaya iska daa inta wax garanaysa iyo odayaasha dhaqanka iyo dadka aqliga oo saaxiibka ah marka dadkaasna waxaan soo jeedinayaa in la iska qabto ilaahayna la baryo inuu ilaahay abaarta naga soo bixiyo taasaan leeyahay khaasatan dadka abaarta markaan ka sii hadlo dadka waa si kala daran yahay gobolada waa si kala daran yihiin ummadda Soomaaliyeed ee gobolka gada degan dhib badan bay qabtaa ilaahay raxmaanka dhibka horta Allah ka bixiyaan leenahay waxay qabtaa dhib fara badan waxay qabtaa mas'uuliyad darro dadkii mas'uulka looga dhigay ee gobolka wax ku naalaha waa waxad maqlaysaan oo dheelalawga ku hadlay oo hadda leh doorashadii la kala saxiixday 17 la kala saxiixday lagu kala saxiixday meesha la yiraahdo Baydhabo xamar lagu kala saxiixday oo lagu heshiiyay inay doorashada waqtigeeda ku dhacdo oo la kala qortay baa hadda la leeyahay waxa lagu ma qabanay garbaari lagu ma qaban karo war garbaari waa meel nabad ah waxa waaye nimanka saa u hadlay mas'uuliyad ma qaadi karaan baan qabaa waa dheelala waxay ku jiraan waxay ku hadleen wax aan qaadan karna ma aha waayo Soomaalida waa cilmul qaliil iyo khalqilu kal ciyaali baa leeyahay dheelala waxa leeyahay canug la toosiyay oo markuu seexdo habeenkii caanaha ama cuntada loo toosiyo baa dheelala leeyahay dheelala waay cilmul qaliil iyo khalqilu kal ciyaali cilmiga yarna sidii ciyaalkii ku lululaa waayo oo marka niman mas'uuliyad ma aha niman cilmi iyo murtihaaya ma ahan waxaan qabaa waxa ay ku hadleen wax la qaadan kara ma aha ilaahayna waa idinku cadaabaya ummadda 8 degmo oo xur ah oo gobolka gadaad mar walba rabtaa inaad hal degmo cadaadis u saartaan waxaas ilaahay idinka ma aqbala ilaahayna waa idinku inqaabaya ceebtiinan ummadda Soomaaliyeed waa ogaatay aakhirna waa idin qaban doonaa waxaas ku hadlay mas'uuliyiinta sheeganay ilaahayna waa idinku xisaabtamaya ummadda hadda abaarta ay kicisay oo Nairobi afkeeda gaartay Tana-Riifo gaartay oo gobolka gada deganayd oo intana Kismaayo cuskatay oo hadda la sheegay ceelashii in biyo laga leeyahay gobolka ku yaalay waayo abaaraha soo noqday awgood in hadda saacad ula hadashaan waa ayaan daro ilaahay baan kula xisaabtamay ilaahay baan ku inqaabay waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed ee gobolka gada degan ee dhibkaas uu haysto oo diyaaradaha lagu garaacayo oo abaarta ku soo noqonayso waxaan qabaa ilaahay barya inaad ilaahay baridaan ilaahay baa gacan weyn wadanka waxa lagu deganaan jiray alla bari reegada waa fiicnaan dad fiican bay ahaayeen marihii la akhrisan jiray akhristo ilaahay baa idin maqan waa arkaysaa ninkii mas'uuliyiinta sheeganaya Jubbaland waxay ku hadlayaan ilaahay baa idinka soo deeqaayo waxa la rabaa inaad ilaahay baridaan baan codsanaynaa annagana ilaahay baa idin baryaynaa inuu ilaahay madar khayr qabo oo mushrikiin muslim baa amiin ilaahay idin siiyo adinkana waxaan leeyahay walaalayaal ilaahay barya abaarta ilaahay baa idinka bixin karo ilaahay baa keenay ilaahay baa naga bixinaayo ilaahay hala baryo ilaahay gacantiisa lagu dhargayaa habeen iyo maalin waa isdaba taagan xoolihii meeshaan maristi oon baa loogu baqtiyay ceelash biyo laga waayay abaarta awgeed meesha leeyahay wargaduud iyo alcadeey marka dadka muxsiniinta oo gobolka u dhashay ama ummadda Soomaaliyeed ee khayrka badan waxaan codsanayaa in ummadaas la garab istaago hadii aan idinkeeda leeyahay Soomaali waxaan iskuma fiirsan jirin ummadaas gobolka gado
dhibkeeda wax laga sheekayn kara ma waa aragtaan waxa haysto hadday maamul tahay iyo hadday abaar soo noqnoqotay tahay waxaan codsanayaa in ummadaas loo gurmado dadka muxsiniinta oo gobolka u dhashay iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaan in loo gurmado dawladda federaalka ah ummadaas hadda dadka waqtigiisa in la gaaro ma ahan hadda dadkii waqtigiisa sanadkii hore waxba dad baa oo u dhintay hadda dadkii waa soo dhawaa geeridiisa hadaan loo gurmanin waxaan codsanayaa in dadka la garab istaago insha Allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay gurmadkiisa degdeg ah u fidiyo salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh